سؤالك لما هو الشيء وكل الأولي في الفيديو بعض الفكر يسودان في صحافة هي كتاب الشر. شقابور بانو باناي ما شقابور كنو ديدي أنك هي تدوينها هنون نادت توقنا والله بلاك البلدوي وأكون قناع سليم بقى وح ما تقنع أن عقبه ما ناركين لكن لما وقف بحث لما وقف بحث محتوى اللي جسوسي ورقة الله صحيح وقولي جلسوسي لو كان تجنين مالك استنوا ينوي ما دانوا حيدا إنه وقول حلا محمد ديدن حفيز هي إنتي بلودك هاي وعدم اليرادة عيادة بلد سمعتنا بلد ده حدا وحنا يسير برخدي ما حدا بركل لوجود جديد يا محمد aniga ku-xigeenka wasiirka xafiiska dowlad deegaanka Soomaalida anagoo wada taagan buu albaabkiga sii deyn kari waayay ugu adeer dhibaatada anaga way nahaysata ciidanka meel laga maamulo ma naqaan waa iska soo laabtay xaqiiqo wasiirku fadhiya hadda inuu maqlayo waxa weeyaan oo rajeynaya وصول لما حوض على حد من الإيمان فإن حرية الله يستطيع مدة من هذا الحد لها ninkii meeshan ka tagay madaxweynihii hore waxaan kula taliyay laba arrimood warfaafinta sida aad idinkuba ogtihiin wax kasta haddii uu dhaco lama galo madaxtooyada la mid tahay madaxtooyaduna way ka daran tahay xaqiiqatan لكن هذا والله يستطيع حوض اللي هي لم يكن فرع بدل من كان لو ينفع يستطيع في الشرطة إلا ولا حسابهم وبشر هذه كل سنة أو لو عدالي أو لو عدالي أو لو يركع بدهين مثل لكن صحافة ورفافنته لما سوى أدبا خسارتي اللي قد من لها وارون سيدي لك يا رسول شيء سكر عمي اللي سيدا يا ما صحافة ما تنام هاي صحافة ما تنام لنا مثل صحافة فرنسا أنا أقول هرمر بانو بانا هاي أنا أنا هرمر كي أنا وصل مايو فانك ميلا نتجي waxyaabo yaryar oo tabanayaan oo marka la eego oo drones laga yar haysto oo leeyihiin drones ka anaga soo iibsanay oo ku shaqaysanayna ee waa laga haystaa la noo sii daayo maanta heesaha aan sameynay badanaa TV-ga laga sii daayo heesaha waxay gelinta bulshada ugu talagalnay TV-ga laga sii daayo waa heesa qaraamiya ka bax xadgudubkii xadaafka ahaa ee dadka loo geysan jiray iyo durdurinta seefada dadka loogu duuba wax u dhaxeeyay lagu kan laayay laga yaabo inaan bala qurux kusoo kaxaynay oo qaarkood force soo raaceen baa laga yaabaa dadkii madax laga kawiyo oo la garaaco oo la dhibaateeyo oo ay cabsadaan mooyaane dadku ayagoo miyir qabeynaya shaqaystaan oo dadka qabsadaan waxaa laga yaabaa inuu mid jeans xiran yahay mid uu shaad yaro iska hudheeyo xiran yahay heesta calanka ay la soo istaagaan stage-ka ama heesii kale ay ugu tala galeen munaasabadda waxaan inaan raadsado meesha ay ku kala fogmadaan xubta iyo beenta meesha ku kala fogmadaan marka caqabadahan ciidanka haddana uu wasiirkii gelin karin isagoo taagan oo gaarigiisii wata waayo cidda loo adeegayo siduu qofku gelaya eeg waa point weyn saxaafadda iyo fanku labadaas oo la isku gubtay daweyn bay nagala jirta ka xisbi barwaaqo ahaana waayo guriga ay kooxdu degan tahay dad dhowr iyo 70 qof ah u soo shaqo tagay waa guri 6 mitir weyn iyadoo saas tahay haddana hoolka kooxda leedahay waa 6 mitir iyo 7 iyo 5 mitir weyn hoolka dhan ay kooxda isku timaado bahda falka iyo suugaanka iyo bahda saxaafaddu inay nagala shaqeeyaan danteedu waxa weeye barwaaqo waarta oo loo dhanyahay waxay u baahan yihiin in kooxaha fanka iyo suugaanta ay soo saaraan wax suuq ay la yimaadeen intaasoo dhalinyaro waxay ku adeegaan mishaarkooda waxayna qabtaan shaqo ka badan mishaarkooda gaadiid la'aantu dhibaatay leedahay gaadiidkuna wax qabadka ugu horeeya in aan soo jeedinayo weeyaan in loo hirgeliyo museumka waxa ku haboon in laga dhigo halka nafteeda oo farasku yaallo kooxooni abal helaan ama inay mataqaanay raashinasi waxay ka jecel yihiin hal abuurkooda inay soo bandhigaan sektorka warbaahintu gebi ahaanba isbedelo anagu xafiiska warbaahinta loo sugnaa xafiiska warbaahinta mas'uuliyiin kala duwan oo iskaga dambeeyay maysan ahayn dad faham warbaahineed iyo sidoo kale leh la tacaamul warbaahineed waa la qabaa fikirka bahda fanaaniinta ee cid kale inta banaanka looga yeero in loo saxaabatumo iyaguna ay markhaati ka noqdaan annagana dhigtaas way nahaysataa macal madaxweynaha iyagoo ugu sarreeya waraysna ma siiyo maxaa u diiday warbaahinta madaxa bannaan ee gudaha deegaanka joogta ee aan dawliga ahayn in dawladdu ay u isticmaasho in ay xaqiiqada keenaan oo iyadoo balance ah ay baahiyaan si ay meesha uga baxdo cadaadiska ka imanaya warbaahinta dibadda ayaan la kantaroolin
xafiiska warfaafinta waxaa la sheegay inay adag tahay in la galo ciidan baa jooga run ahaantii waanu ku dadaalnay in maaragtay aan fududayno soo gelista waanu ku dadaalaynaa waana la dhisayaa meeshii la keenayay sayidka laakiin annakii deganayna ku shaqaynaynay nalooma soo sheegin xataa nalooma eegdaa anugu yarays baan arkaa xaaladda droniska ee laga hadlay bahaladan droniska ee wax duuba sharci baa laga soo saaray guud ahaan dalka sharcigaas wuxuu odhanayaa gudaha deegaanka Soomaalida waxa jooga warbaahin sharciya xafiiska warfaafinta deegaanka Soomaalida ka liskaraysan oo nidaam sharciya u shaqeysa annagii nidaamka sharciga ah ku shaqeynaynay muwaadiniinta ahayn waxa weeyaan deegaankooda jeclaa sharciyada haysanay cashuurta dawladda shubaynay dawladda wax walba u diyaar ah inay dawladda la shaqeeyaan annaga dawladdu waajibaadkii macnaha xuquuqdan ku lahayn kama helno annagoo mar walba diyaar u ah inaan waajibaadkayga gudano waxa dhacda mararka qaar annagoo oo shaqo u baxna aanan ciidan lacag nagu siinin dawladda oo nagu taageerin laakiin aan rabno inaan danta bulshadayada ka shaqeyno iyo quruxda deegaanka iyo bilicdayada inaan sida dadka kale aan u soo gudbino waxa dhacday in carqalad nagu dul dhacaan dawladdu itaal uma laha laakiin waa in hoos loo eego laba gaari loo iibiyo labada kooxood ay ku shaqo galaan maanta hadday damcaan ay dhagax buur ama qarbi ay ka soo jeediyaan barnaamij ay qabtaan gaadida ay xuduud ku dhaafan ma xariga ma dhaafi kara awood ma lihinba mas-uuliyiintu inay dadaalayeen baan qabaa annagu hadda waan cusubnahay saxaafaddu waa xor laakiin boqolkiiba boqol madax bannaan dhammaan deegaanada dalku waxay leeyihiin tiyaataro deegaankiina awood looma waayo tiyaatar lagu dhiso laakiin lagama fikirin oo culays la iskama saarin usaan u arko weeyaan qodobkii kale ee ahaa saxaafadda gudaha in la dhiirigeliyo si looga hortago warxumo tashiilka ay wada saxaafadda dibaddu waa qodob muhiim ah waan qaadanaynaa si warbaahinta iyo bahday fanku wada cawlcawlantahay oo wada cawlcawlanahay gebigeeguba waxay ahayd inaan qurux badnaano waxay ahayd inaan caan noqono waxay ahayd inaan bulshada dhexdeeda waxa weeyaan marka taana waxaan ballan qaadaynaa wixii hal abuur ah iyo heesa dadka wax taraya ee ka turjumaya horumarka iyo wacyiga maanta taagan in laga sii daayo oo lagu bedelo qaraamiga laga cawday la sheegay markay xafladii dhamaatay waxaan sareynay wasiiradii waxaan ku yidhi yarkii shalay xafladda ka qayb galay annaga nagama tushmayo dhaqankeena nama matelo nagu dad fanka oo madax qaawan oo muxuu ahaa aniga adu xuquuq bay leeyihin laakiin maxaa ku yidhi dhaqankeega kama tushmayso waxaa jira qalab la'aan waayo askari bilaa huba ma dagaalamo qalab la'aan baan nahay haddii waa yahay annagu xafiiskeen hoos tagaynaa ma caafimaadkii waa ma biyaha waa maya wax kasta haddii uu dhaco haddii askarigu asxaanu kuu sameeyo wuxuu ka odhan wasiirka la hadal